people aniyada u dhisayso why all country are hater why wadankeena dhan hater u nahay why isku xasdeena kaale dagaaladii ma waxa noo keenay I don't know before that aniga to be honest with you balse dagaaladii kadib ma waxaan noqdeen I need dadka waaweyn inay naga dhaadhiciyaan waxaan ma wax dagaaladii kadib noo imaaday mise before hatta sana la isku xasdi jiray is this wax oo maaragtay natural naga amiya Soomaalida asalkeeda soo dad islaam ma aha why la isku xasdaa why xaasidkan la hadlaani why la isku xasdaya why you guys doing this hadda waxa arkaysaa gabadha wax wanaaga sameynayso ama waxbay kariyad gareynaysaa hadda kaba soo qaad she's happy kareemay samaysay ama waxay samaysay gabar kale oo Soomaaliya suuq u galaysa kareemkan ma fiicna hamarsan xataa maysan tijaabin she just wanna gabadhaas inay levelka ayada hadda taagan tahay maadaama ayada ay waxba kariyad gareen wali ay isku position noqdaan waxa arkaysaa nin driver ah oo wada Uber ama shuttle ama track wiil kala soo wacay oo nolol reerkiisa u raadinay isaga laftigiisa wuxuu ku leenayo taraagna war lacag ma lehe iska dhaaf markuu ka buxu leeh naga tag dheh wuxuu rabaa inuu suuq nagu soo cariiriyo Soomaaliye in Allah yarsuqu man yashaa biqayri xisaab ilaahay wuxuu ku qoraa helaysa ilaahay wuxuu ku siiyaa calfanaysa you think in asaasan I feel emotional so real hada farxada iga barateen laakiin I don't like this aadan u nacay way iga soo booda arintan والله وأيدين بريايا كلجين بليس وأكو بريايا I hate إن ساعة هذلو and I hate it والله بالله إن ما عرفتي لكن I'm ما أقول والله disappointed أنكو أنيقا Somalia وأيدين جعلها بليس نقداي I know قبل كسو جدا أنيقا وحبا ما إيدين كقرينايا ولا لهياتين I'm from Puntland adiga ifir sanay some of you Jubbaland kasoo jeedaan some of you Somali galbeed kasoo jeedaan some of you waxay kasoo jeedaan gobolada waqooyi bari Somaliland kasoo jeedaan waa wadan go'ay Soomaa some of you waxay kasoo jeedaan Djibouti some of you waxay kasoo jeedaan Muqdisho Soomaaliya calanka buluuga ah magaalo madaxdeeni some of you waxay kasoo jeedaan Galmudug some of you Hiiraan bilis waa koonfur galbeed qaar kasoo jeeda bilis waa idin baryaaya garka idin haysta we all Somali same blood come on guys don't be hate each other dawladda teeda kaleeto why siyaasadan dhaxgali wi shacabka Soomaaliyeed nahay all of us shacabka Soomaaliyeed nahay why siyaasad u galeena shacaba tahay shiftiya ka shaqeysa gabaray dhaybara badasha we know I know all of us waa shaqeysana maxaa siyaasad noo tarta ilaaha idin ku dhaarshay ilaahi idin abuura idin ku dhaarshay is there anybody uu qabiil guri kira ka bixiyo is there anybody uu qabiil cuntasi is there anybody dhintay oo aragteen oo la dhahay waa la dheer istaag ha lagu duugo ma aragteen inta qof bini aadan la duugay aan taagneen oo la dhahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un qofa dhintay ilaaha idin ku dhaarshay qof istaag loo duugay oo la dhahay laan dheer waa madaxiisa dhul ma la dhigay ma aragteen no ma jiro we all of us same ana ilaahi ka baqa gabadha aaniyada ka jabinaysid tawaalan oo madaxa looga jiro gabar yar oo waxa jirto cunug yariis waaye I think she is 21 or 22 or 19 waxay soo gashaa Facebook heesay shidanaysa baatiye qabtaa go ee huwantay she's just trying to feel stress free oo dadkeeda ay la sheekaysato you know what they do nimanka waxay u caayaan si bini aadanimada aan ku jirin why maybe she's not mentally stable but you cannot do that that's mental abuse waxa sameynaysa adiga please stop waa idin baryaaya aada idin jeclahay I don't like in a life soo galo laakiin wallahi maanta waxa u soo galay jaceelka idin qabo especially dadka commentiga xun dadka u qora ani ima soo qoraan ani ma ii soo qortiin I know waa idin jeclahay ana waa jeceshiin laakiin qofka kale u qoray sidoo Soomaaliga dhiiga ii danqanayo I don't like it why nin iyo naagba qofka ha caynina please waa idin baryaa daaya cayda Georgia is not good thing wax fiican ma aha totally qofka bini aadanka inuu qof kaleeto uu qalbiga ka jabiyo waxay la mid tahay qofka uu ka siiyay ilaahay ka baq commentigaas aa qorayso aakhira asagoo one word ah uu ku soo istaagaya maalin dhaweyteeda kale waxaan kaloo ka qaracmay oo arkay gabar
sheekaynaysa oo telefoon nin ugu sheekaynaysa oo waxay ku hadlaysa ilaah baan ku dhaartay afkii gacanta isku ka dhigayaan ayaa gabar kale oo maskiina oo Facebook live soo gashay intuu nin soo qaaday codkii gabadhi dul saaray why abo hooyo ma ku dhalin miya walaal kula ma dhalan miya ilaahan kugu dhaarshi ku abuuray ilaahay ku abuuray oo neefta ka keenay oo adiga hadda aad dartiis dusha adduunka ugu soconaysaan kugu dhaarshay soo hooyo kuma dhalin oo aabba kuma dhalin soo gabar kula ma dhalan why ay gabar intaad soo qaado sawirkeeda u dul saaraysaa cod why gabar asturan oo sharaf leh aad intaad soo qaado sawirkeeda naaso ugu dhajinaysaa qaawan why you doing that why qof dhan oo bini aadan ah kaftanay ka tahay iyo like iyo share hel laakiin you know how you damage gabadhaas future-keeda do you know how you do gabadhaas ma aragta nolosheeda waxa ku sameysay ma ogtahay do you know dadka dhan inay smart ah oo dadka qaar u fikirayaan inay gabadhaas tahay do you know qofkaas inay ku noqon karto damage forever daba socda do you know qof bini aadana markaad sawirkiisa inta qaada wajigiisa aad sawir qaawin ku dhajiso do you know qofkaas sumcadiisa iyo sharaftiisa kaliya inaad wax u dhimin oo aad inta soo qaaday karfan ku riday god ku riday because you know why gabar waa maracad marada cadna wasaqda ku halawdo kama go'do no si kasta ay sharaf u leedahay si kastay zaaniyad u ahayn si kastay gabar sharaf leh u tahay gabar hadday wasaq ku halawdo kama go'ayso you know why because ragga waa ka nugulnahay gabdhaha waa dhalo nimanka Soomaaliyeed waxa idin leeyahay gabdhaha waa dhalada waa la ilaaliya because hadday mar idinka jabto xataa adduunka kale sumcad kama yeelanaysiin ninka ragga ah xiniyihiisa lagu sheegay waa ilmihiisa iyo dumarkiisa ninka ragga lagu sheegay xiniyihiisan ku dhaay iyo raganimadiisa waa dumarkiisa ragga Soomaaliyeedna ilaah baan ku dhaartay hadaa u malaysay xiniyaha kaalusha iyo raganimadaada inay tahay raganimo ma aha raganimada taas raganimada waxa waay ninka dumarka protect gareeya that's the man ninka dumarka protect gareeya ayaa nin raga ah ninka gabdhaha difaaco aan nin raga ah ninka gabadha sumcadeeda ilaaliyo ayaa nin raga ninka xataa markuu arko ayadoo qaawan intuu mara soo qaado saaro that's the real man you know that marka inta gabar aan ceeb lahayn ceeb u raadinaysid waxa lagaaga baahan yahay xataa gabadha Soomaaliyeed oo ceebta leh inaa ceebteeda asturtid midda cabsan waxa loo baahan yahay inta baaska geysay inaa u qubaysid because waa cawradaadii wariyaa cawradaadii waay gabadha that's your naked cawradaadii waay gabadha Soomaaliyeed cawradaadii waay it's not something else gabadha Soomaaliyeed waa cawrada ninka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed waa ceebta ninka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed waa dhibaatada ninka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed waa hilib banaan yaal yu ka yaala ninka Soomaaliyeed uu ka yaala you think inuu qof bini aadanku kala jecel yahay hadaa cad mar hilibkaaga inta soo jirtid adhaada wakaasa hilibkaagii nobody cares about you marka qof walba waxa la dhahay mahmaah carabiya jirto oo la dhaho man sharafa nafsahu fa huwa sharif booska amaanta taaganahay Soomaali annaga isgaarsiinay maxaa u gaarsiinay ilmaheena bahdilnaa naagaheena bahdilnaa ninka ragga ana markuu lowest class gaaro waxa waaye markuu dumarkiisa iyo caruurtiisa bahdilo that is the lowest class oo nin raga uu gaari karo waa marka uu gabdhahana bahdilo waa bas waa that is the last limit trust me Hindiya wadanka ugu faqiirsan adduunka maxay ka noqotay mataqaanaa aabaha ayaa wuxuu ka ganacsanaya gabadha uu dhalay that's why India become the lowest and cheapest country oo dumarka $200 loo gato and if we don't stop this waa gaarina taas limitkaas inaan gaarno ninka ragga ahna damiirkiisa waa intay gabadhiisa asturan tahay nin raga damiirkiisa wallahi oo billahi oo tallaahi ninka ragga damiirkiisa iyo raganimadiisa waxay dhameystiran tahay intay gabadhiisa asturan tahay
gabadha aad dhashay oo aad xaaskaaga ka dhashay kaliya kama hadlaayo gabadha Soomaaliyeed cawradaada waa intay asturantaa sharaf leedahay that is the time aa sharaf leedahay marka imagine hadday qaawisa ayada xorriyad u ah hadday ayada diinta islaamka waxaysan waafaqsanayn ku dhaqanta ayada u taala laakiin inta aad sharaf leedahay ayaaba waxay tahay intay gabadhaas asturan tahay imagine marka adiga cawradaadii aan nin rag ahaan u asturan leed aad banaanka soo dhigtid ka war how about that marka adi taadi aa banaanka dhigaysid oo waliba ayadii oo aan rabin oo xijaaban intaad xijaabkii kaamarad uga qaaday iyo waxyaabaha ay sameeyaan kombiyuutarada I don't know aad adiga naasan naaga kale oo gaala ay leedahay ku dhajinaysa ka war aa leedahay waa ayadii waa gabadhaadii oo asturan baad adigu ceeb u raadinaysaa tomorrow future adduunka ka leedahay inaad guursato oo ilmo dhasho meel degto karma is a bitch marka waxaan idin sheegayaa ragga Soomaaliyeed please waa idin baryaynaa dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay na ilaaliya because borobertiga aad leedahay haddaadan dayactiran nobody ku dayactiraay male gabdhaha Soomaaliyeedna waa cawrada ragga Soomaaliyeed taas la socda doqon baan ogeyn waa in salaamaya wallahi maanta arinta faa'iido inaan ka hadlaa rabay iyo arunta gabdhaha Soomaaliyeed intaba please waa idin baryayaa faa'iido arrimaheeda anaa idin ka soo waramayo waa idin soo gelina information keeda straight ula xiriiro qofka faa'iido lacag u diraayana